caasimada Somaliland ee Hargeysa iyo guud ahaanba magaalooyinka Somaliland waxa ka jirtay maalmihii ugu dambeeyay shidaal la'aan baasan oo ah shidaalka loo yaqaan batroolka oo gabaabsi ku noqday kaalmaha shidaalka ee Somaliland haddaba gaadiidleyda wadata gaadiidka iska kala goosha magaalooyinka Somaliland iyo kuwa dhaxmara magaalada Hargeysa ayaa cabasho xoogan ka muujiyay arintan buukaxsan shidaalku marka shidaalku bariyaha uu kaxsanaayo dadkuna dad maham oo dadka maqan dad masaakinta هذا الشيء طير ثم أنا رعايتك لأن مرة على ضدك مساكين الليلة العقل كم كل كرده أو ضدك يعني ولا سهلنا حتى حتى كلنا ندلفت ضوي حالد وأنا جوان سامين الصا كسر وقص شالكم قاعد بوقال سنة هاي بريهم دم بابا وسك كحسنا تكبروا هو عادي لكن لا شك يسمع قبلها إما كل العمر يتوقع كل يسمع قبل مكوب يتوقع شيء مركان هو ويكرنا البحلوة تذكير واحد العمل هو كل كريه مجرته ويا فرتكم بلاقاتها من الحضور هل دورات القدر فرتده واحد سنة أصدق عشان ما نستدعشه بس كده مصارف حضور سنة ولا فاهم واحد نوعه يقعد يقول حقوق عماينه مركان إما كان ضنتوا عقص بسيان ديتشو شنو بورت جيش قلنا أما دي عندنا يستان يبنوه kaalmo kooban ayaa iyaguna haya shidaal kooban oo xadidan oo ay ka iibinayaan macaamiishooda oo qiimihiisuna uu aad u qaali yahay haddaba kaalmaha shidaalka ee magaalada Hargeysa iyagana aan saaka soo marnay ayaa cabashadooda waxa iyagu ku eedeynayaan wasaaradda ganacsigu inay shaqadoodii iyo hawshoodii qabtay shidaalka horta waa iska gabasi anagu maadaama ku yaalo suuqa bartankiisii kulli aad baan u dareemeynaa dhibaatada haysta dadka gawaarida wata waayo shidaalkii oo iska yar anagoo ku noolna maxay magaalada bartankeedii marka aad baan u dareemeynaa markaan arno dadkii noo imanayay aan ku leenahay shidaalkii ma hayno maxay naaftoon baan haynaa imika laakiin kulli ma aragno wax rajin leeyahay shidaal baa iman leeyahay sabtida baa la shidaal baa imanaya sabtina wali wax wara lama hayo marka kulli iska badiyay kulli dawladda dhexe ayaa ka mas'uula shaqadeedii may gudanin sababtoo ah walaalo dad badan oo soo koonfurgalayn lahaa waxa gudan wasaaradda ganacsiga sababta ay u gudan weyday wasaaradda dawladda dhexe iyada ayaa u diidan cidii meesha buuxin lahayd ee soo dhaamin balahayd kadib cabashooyinka xoogan ee qabaan wadayaasha gaadiidka iyo kaalmaha shidaalka iibiya labaduba ee ay ku eedeynayaan wasaaradda ganacsigu in hawsheedii iyo shaqadeedii ay qabtay waxaanu xafiiskiisa ku booqanay wasiirka ganacsiga ee Soomaaliland mudane Muuse Qaasim balse markii aan u tagnayba waxa uu diiday oo ganafka ku dhuftay inuu waraysina siiyo kana jawaabo eedeymaha loo soo jeediyay taas bedelkeedana waxaaba uu noo tilmaamay wasiirku in shirkadda Haas Petroleum oo kamid ah 8 shirkadood Somaliland shidaalka keena aanu iyaga waraysi ka doonano arintaasi oo aad noo yaabgelisay kadibna waxaanu la xidhiidhnay shirkadda Haas Petroleum balse waxay noogu jawaabtay in iyagu ay kamid tahay shirkadaha shidaalka soo dejiya mushkiladda shidaalkuna iyaga xaalad gaar ah iyo saameyn gaar ah midnaba aanay ku lahayn taasoo muujinaysa mas'uuliyad la'aanta wasaaradda ganacsiga isla marhaantaasna wasiirka ganacsiga ee shaqada ku cusub uu jawaab u waayay eedeymaha ay dadweynuhu soo jeedinayaan wadada iminka aan dhex taaganahay waa wadada wadnaha ee magaalada Hargeysa horena uma suurto gali jirin in dadku ay baabuurta saxmadooda dhex maraan iminkana waa cidla sidaad arkaysaan oo gaadiidka waa u yaraaday taasna waxa sababay shidaal la'aanta dhinaca batroolka ee gaadiidka yaryar ay u badnaan jireen inay ku shaqeeyaan batroolka oo batroolku yaraaday sarana qiimihiisu u kacay goobaha kooban ee laga helayo shidaalka mushkiladda batrool la'aanta iyo shidaalka si yaraanaya ee gabaabsiga noqonaya magaalada Hargeysa ee guud ahaanba Somaliland maalmihii ugu dambeeyay way soo xoogaysanaysay maalinba maalinta ka dambeysana waxa soo badanaysa baqaha laga qabo in magaalada Hargeysa litir shidaal oo lagu dhaqaaqa laga waayo mana jirto rajo hadadan muuqata oo arimaha shidaal yaraanta ku taaluqa Cabdiqani Xasan Cilmi Cabdiqani Dawlad Kalson TV Hargeysa